marka meel ay dadka kaala soo xiriiraan ama bar waa inaad leedahay. Meelaha dadka ay kaala soo xiriiri karaan waxaa ka mid ah inaad Facebook page aad leedahay, sidoo kale inaad website leedahay. Labadaas meel waay maadaama ganacsigaada online yahay. Facebook page haddii aad suubsato waxaa loo baahan yahay Facebookgaada waxaa loogu baahan yahay magac inuu leeyahay, name inuu leeyahay, logo inuu leeyahay oo lagu garto calaamad ah, iyo cover page. Saddexdan ayaa la rabaa in maxay aheeday uu leeyahay, iyo cover page. Okay, saddexdaas ayaa la rabaa inuu leeyahay. Website-ka wuxuu noqon karaa meesha maxay aheeday alaabaha aad ku iibinaysid. Sababtoo ah Facebook page-kan waa free waaye, waa shirkadda Facebook iskale xilligay rabtay kaa xiri kartaa. Laakiin website-kan adiga ayaa iibsanaya, waa meel sidii qol kira aad ka bixinaysid waaye sanadkii mar. Domain name magaca iibsanaysaa, hostina iibsanaysaa, wuu ku ijaaran yahay. Marka tusaale ahaan anaga website-keena waxaa la dhahaa oo aan wax ku iibino shop.malaxda.com. inkastoo weli hadda aan dhisaayo uusan si fiican u dhamaystirmin, laakiin waa kana website-keena. Labo, waxaa kaloo loo baahan yahay Facebook page-kan iyo website-ka alaabihii aad gelin lahayd product resale. Waa inaad ka fikirtaa alaabo iibsamayo. Sidee marka maxay aad ku heli kartaa alaabo iibsamayo? Waxaan isticmaali doonaa insha Allah tacaala hadduu Ilaahay yiraahdo plugin ama software anaga aan dhisnay oo anaga aan leenahay oo lagu magacaabo market helper, suuq caawiye ayaa la dhahaa. Halkan waxaa gelinaysaa tusaale ahaan oo kaleeto alaabaha iibsamayo. Tusaale ahaan oo kaleeto waxaa gelinaysaa skin care ayaa gelinaysaa. Skin care markaa gelisid xagee Soomaaliya oo kaleeto wuxuu ii raadinayaa skin care-ka Soomaaliya markii la joogo nooca maxay aheeday laga hadlayo. Okay, Amazon oo kale hadda badanaa maadaama maxay aheeday Soomaaliya wax ka soo saari karin, TikTok ka qaaday. Wuxuu ka raadinayaa Alibaba, Facebook, TikTok iyo Google. intaasuu ka raadinayaa. Dan waxaan leeyahay generate aan leeyahay ii raadi skin care-ka. waxaan rabaa skin care-ka gadmi karo inuu ii keeno. Yacni waxaan diidanahay skin care aan gadmaynin inaan Alibaba aan ka doonto. Marka saas daraadeed skin care iibsami karo oo lacag leh ayaa maxay aheeday aan oo iibsamayo ayaan raadsanayaa. TikTok haddii aan ku hormaro waa kana open dheh ii furdhe bal TikTok-gaan furayaa si aan u ogaado skin care-ka gadmaayo ee dadka ay xayeysiinayaan, gabdhaha ay xayeysiinayaan. Okay, gabadhan skin care weli kama hadlayso, wax kale ka hadlaysaa. Soo siko skin care-ka kan oo kaleeto dadan popular waaye gabadha mujada. Okay, hadda waxaan soo helnay anwa inuu yahay TikTok. waxaa laga xayeysiinaya midkaan anwa ayaa laga xayeysiinaya. Dan maxaa suubinaysaa? waa qoranaysaa. maxaa suubinaysaa kadib waxaan suubinayaa kan ka bax anwa. waxaa suubinayaa productigii aan soo helay. waxaa leedahay fundingis ayaa halkan qoraysa. maxaa soo heshay? anwa mid la dhahay ayaan soo helay. Okay, waxaan ka soo helay dhinaca TikTok wuxuu ka yahay popular uu ka yahay. Okay, Google-kana bal aan fiirina asaga Google maxaa caanka skin care-ka ugu badan ee hadda la iibsanayo waa kee? Skin care-ka ugu badan ee la iibsanayo haddadan waxaan dhihi karnaa okay si popular u sheegayaa Google. Okay, bal discover-kaada ku soo laabo Google Shopping, Google Web. Okay, waxaa imaadaa oo kaleeto Alibaba Soomaaliya markii la joogo dadka maxay ka raadiyeen skin care-ka ugu badan ay raadiyeen. shin Soomaaliya iyaga dhigay kuwan waa ma fahanti. marka nidaam noocaas u diiwaan gashanaysaa ma fahanti. Facebook marka Facebook oo kaleeto haddadan journal search dheh waxyaalaha ugu badan ay raadiyaan dadka kor ay ka raadiyeen skin care marka laga hadlaayo. skin care-ka ugu badan ee la raadiyay hadda Abosto kale ii soo baxday. Abosto kale waxyaalaha ugu badan ay gadayso ayaa fiirinaysa. marka software-kan wuxuu kaa saacidayaa wax kale maaha. wuxuu kaa saacidayaa
soomaalida markii soomaaliya la joogo halkan soomaaliya inaan ku aawo soomaaliya ku qorso soomaaliya ayaa ku qoraysaa markii soomaaliya la joogo waxa ugu badan ee skin careka nooca ugu badan ee la iibinayo ama nooca ugu badan ee dadka iibsanayaan ayaa maxay ahayd generate garaynaysaa marka market helperkan intaas uu kaa saacidayaa marka taas waa fahnaa umaleynaa okay waxaan raadinaa bal haddadan mosquito killer oo kaleeto fiiri mosquito killer oo kaleeto rabaa inaan raadiyo sage level midkan kana cadilka nooca ugu badan ee laga raadinayo internetka rabaa inaan ogaado hoos usoo siko waxaa imaadaa tiktokan imo openable tiktok mosquito killerka ugu badan ee soomaalida ay raadinayaan okay waa kana soo ma joodid waa kana soo ma joodid marka sawira ka qaadanaysaa noocan sawira ka qaadanaysaa dan marka maxayda noocaana keenaysaa ma fahanti marka market helperkan waxa uu kaa saacidayo aaway discoverka market helperka marka wuxuu kaa saacidaa waxaa waaye maxay ahayd wuxuu kaa saacidayaa alaabta tusaale ahaan oo kaleeto inta mosquito killer ku qor asagana labadan shay aan soo helnay maano ashyaada aad soo heshay marka sawiradooda sawira ka qaadanaysa sawiradooda ayaa maxay ahayd ayaa ka raadinaysaa maxay ahayd meelaha marka waxyaalo waxaa rabaa inay keentiin waxyaalo gadmaay ma fahanta alaab trending ah oo suuqa ku jirta ayaa la rabaa inaa keentid lama rabo alaab aan trending ahayn inaa keentid waa fahantaa rajaynaa okay taas waa isla fahanay marka waxaana ku saacidaya market helperka ku saacidaya okay taas waa isla garanay labo waxaan u baahanahay marka waxaan kaloo rabnaa inaan suubsano page aan u baahanaa facebook page inaan suubino haddadan marcadda training center waaye marcad training center waxay suurto gelisay inaan maxay ahayd aan idinku soo gudbiyo cilmigan maanta aa helaysaan marka saas daraadeed adigana waxaa u baahan tahay page ayaa u baahan tahay pagekaas oo alaabahaada aa gelisid hadda aniga waxaan leeyahay page aan ku iibiyo alaabaha oo lagu magacaabo waxaa la dhahaa marcad shop aa la dhahaa fiiriya maxaa la dhahaa marcad shop aa la dhahaa marcad shop waxaan ku iibiyaa alaabaha ayaan ku gadaa ma fahanti waa kana marcad shop ayaa la dhahaa sidaas lamida maxaa u baahan tahay cover page u baahan tahay sidoo kale maxaa u baahan tahay logo ayaa rabtaa sidoo kale maxaa u baahan tahay magac ayaa u baahan tahay ma fahanti dan marka intaas heshid waxaa u baahan tahay alaabo inaad soo heshid si alaabo aa usoo heshidna waxaan isticmaali doonaa market helperkana isticmaali doonaa oo alaabaha maxay ahayd gadmaayo ayaan soo gelin doonaa hadda ani marka maxaan gadaa ani marcada shop imo waxaan iibiyaa dharaan iibiyaa kawooyinaan iibiyaa saacadaan iibiyaa oo sad ah ma joodaa waxyaalahanaa iibiyaa dan marka maxay ahayd waa arki kartaa sidaas lamid ah ayaa adigana aa u soo gelinaysaa waxyaalaha aa iibisid ayaa halkan soo gelinaysaa marka nidaamkaana marka waxaa la dhahaa online business aa la dhahaa why online business uu muhiim u yahay marka ganacsiga online-ka ah sababta uu muhiimka u yahay maxaa waaye wuxuu ganacsiga online-ka ah wuxuu muhiim u yahay waxaa waaye kow waxaa kuu baaqanayso kiradii guriga lacagtii kirada aad bixin lahayd ayaa kuu baaqanayso labo waxaa kuu baaqanayso korontadii iyo biyihii saddex maxay ahayd waxaa kuu baaqanaya transportationkii lacagihii oo baabur raaca kaa geli lahaa ayaa kuu baaqanaya marka si fudud online businessku waxaa waaye mid qarash fara badan kuu baajinayo inkastoo qarashkaas aa gelin doonto dhinaca marketingka aa gelin doonto marka maxay ahayd waxaan kaloo rabaa inaan intuso sidee loo qorsheeyaa markii alaabihii aad rabtid inaad soo iibisid tusaale ahaan oo kale hadda waxaan suubinay facebook page ayaan suubinay magac ayaan suubsanay logo ayaan suubsanay cover page ayaan suubsanay website haddii aad ku dari kartid kheyr waaye ani waxaan leeyahay shirkadda websiteyada suubiso oo websiteyada waan suubiyaa website haddii aad suubin karto enough labo waxaan kaloo ka fikirnay product resell alaabihii aad dib u iibin lahayd ayaan ka fikirnay kow waxaan soo helnay skin care oo annual ah mosquito ayaan soo helnay mosquito killer ayaan soo helnay kaneeca dile maadaama aa cusub tahay bilowga horeeto 14 shay ayaan keenaynaa oo keli ah 14 shay oo keli ayaan keenaynaa maadaama uu cusub yahay ganacsigeena albaaba imow waxaa dhahdaa marka mosquito killer raadi marka mosquito killer raadi
mosquito colorkan markaan raadino okay noocii ma ujeedaa noocii oo maxay ahayd popularka ahaa ee aan sheegaynay marka noocan oo kaleeto ayaan rabnaa inaan iibino noocan ayaan rabnaa inaan soo iibsano marka waxaan suubinaa videogan horta soo download garayso videogan waa u baahan tahay soo degso videogan markaad soo degsatid sababtoo ah videogan xayisiin ahaan aan u isticmaali doonaa ma fahanti sawirka haddii aad rabto qaado haddii kaleetana dhib male marka waxaa suubisaa maxay ahayd kanaaca dile mujooda mosquito killerkan kanaaca dile waa tayadiisa aad u sarreyso dan waxaan suubin doonaa insha allah tacaala inaan la xiriirno horta login aan suubin doonaa oo akoonkeeni greet the account ee akoon aan suubin doonaa soomaaliga anaan rabaa inaan bedelo english waa luuqadda okay fin soomaaliga waa kana kaana siginta laga bedelaa US dollar aan rabaa inaan ka dhigo USD soo ma joodid dan maxaan leeyahay isaab gareedhe US dollar ka dhig okay waxaa imaadaa marka mosquito killerka waa kana soo ma joodid mosquito killerka nooca aan rabo midkan waaye maxaa la gadaa halka xabo $7 ilaa $9 la gadaa 10 xabana waa inaad ka qaadataa qiimaha maxaa waaye qiimo expensive ee waa aad qaali igu tahay marka saas daraadeed waxaan suubinayaa kala doorasho isiinayaa inaan qiimaha dooran karo yeesuu isiinayaa meeshaan ay ku qoran tahay mawjoodaa price ay ku qoran tahay halkaan imow meesha maximum price ay ku qoran tahay waxaa gelisaa $3 geli dan maxaa leedahay enter dheh ya dan enter markaan dhaho marka raadi marka mid oo ku anfacayo mid $2 bar kii aan raadinayn kuwii aan raadinayn oo kuwana soo u joodid $2 ilaa $3 kan sidoo kale waa haystaa okay waa kana asagana kii shabaqa waay kan maxaa la gadaa $2.60 la gadaa okay marka kan oo kaleeto la hadal 2 ilaa 3 maadaama $3 waay maadaama hal xabo oo kale aan qaadanayso oo kan very waay tira aad u badan waay okay tiradana waa hubinaysaa kan oo kale hadda 2 xabo aan qaadan karaa soo ma marka maadaama 2 xabo aan qaadan karo igu dhufo asaga marka igu dhufatid waxaa dhahdaa jad now dheh la hadal markaa la hadashid qofka waxaa dhahdaa marka hi waxyaalo muhiim marka inta joogto marka waxyaalo muhiim oo waxaa jira la rabo inaad ogaatid waxyaalaha ogaanayso waxaa kow ka ah baashan maxay ahayd soo qaadisid oo China aad ka dalbanayso oo Soomaaliya aad rabto inaad keentid waa inaad miisaankeeda ogaataa sababtoo ah miisaankeeda ogaanayso waxaa waaye alaabaha waxaa lagu soo qaadaa markii China la joogo Soomaaliya la keenayo alaabadaha markii la rabo in lagu xisaabiyo shippingka waxaa lagu xisaabin doonaa kg kilogram wax la dhahay marka saas daraadeed wax walba oo culeyskooda aad u weyn yahay waa iska daynaysaa marka kan haddana kiloga inaa ogaado muhiim waa hi please fadlan ma ogaan karaa I want to know waxaan rabaa inaan ogaado the weight of this product culeyska alaabtaan rabaa inaan ogaado waxaan rabaa inaan maxay ahayd I want to calculate waxaan rabaa inaan xisaabiyo shipping cost ayaan rabaa inaan xisaabiyo qiimaha shippingka ayaan rabaa inaan xisaabiyo saas daraadeed igu saacid inaan ogaado maxay ahayd inaa ii sheegtid inta kg ay tahay tusaale oo kale alaabtan waxaa la rabaa haddii 1 kiilo ay noqoto tusaale waaya haddii 1 kiilo ay noqoto maba noqonaysa way ka yaraanaysaa calculatorka imo hal mar haddii 1 kiilo ay noqoto waa iska deynayaa sababtoo ah $11 waxaa u geynaysaa halkii kiilo waxa lagu soo qaadaya $11 lagu soo qaadaa waxaa u geynaysaa $3 adiga waxay kugu fariisanaysaa lacag $14 ah oon xayisiin ku jirin wax walba aan ku jirin ayay muqdisho kugu imaanaysaa marka saas daraadeed totally waa iska daynaysaa ma fahanti laakiin haddii 10 xabo ama 5 xabo haddii aad ku hesho 1 kiilo aad ku heshid ya tusaale ahaan oo kaleeto 5 xabo waxaa ku hesho 1 kiilo halkii xabo meeqa waaye $3 waaye 3 ku dhufo 5 meeqa waa $15 waaye waxaa u geynaysaa $11 u geey meeqa waaye 26 waxaa u qaybinaysaa 5 xabo u qaybi calaa xabad meequu kugu fadhiyaa $5.20 adi waxaa gadanaysaa intaa rabtida iibsanaysaa
sababtoo $5.20 caqli gal waa ma fahanti marka sababta ay kiilo u ogaanaysid saas waa insha Allah tacaala marka cashirkeen insha Allah tacaala waa wadi doonaa qof walbo idinka inga midna waa caawin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo alaab ayaan la dalbi doonaa labo alaabtan sida loo iibiyo ayaan iga saacidi doonaa insha Allah tacaala waxaan ballan kaaga qaadi doonaa 14 shay Alibaba aan ka iibino oo aad keensatid 14 inaan kula gado ilaa ay gacantaada ay fariisato inaan suuqa aan kugu sii deynayno insha Allah tacaala hadduu ilaahay yiraahdo sidoo kale waxaan kuu ballan qaadi doonaa 24 saac inaan ku caawin doono wixii caawinaada u baahato aa iga heli doontid waxaan suubsan doonaa group oo WhatsApp ah groupkaas oo maxay ahayd anigana aan ku jiro idinkana aad ku jirtiin inta badan idinka ayaa is caawin doono markii aniga aa caawinaad iga rabtaanna waqti kasta oo ay heli doontaan insha Allah tacaala hadduu ilaahay yiraahdo marka koorsadan waa koorso aan ugu talagalnay muddo 3 bilood inay socoto 3 bil kadib waxaa noqon doontaa qof isku filan qofkaas oo ka shaqaysto internetka si iskiis ah insha Allah tacaala waxaa ku bilaabi doontaa ganacsigan lacag aad u yar lacag ka yar $100 ama dhan $100 ayaa ku bilaabi doontaa hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah tacaala dan waxaan ku ballan qaadi doonaa 3 bil gudahooda in aan noqoto qof lacag suubinaya hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah tacaala fadlan haddii maxay ahayd koorsadan aa u baahan tahay si aan ku diiwaan geliyo fadlan igala soo xiriir lambarka shaashada ku qoran ama WhatsApp-ka